barnaamijkan waxaa marti noogu ah Cismaan Saalax Faarax waxaan ka helay magaalada Burco. Cismaan waa nin qoraaya waxa uu ku dhashay magaalada Ceerigaabo isagoo yar ayaa Burco la keenay kadibna waxbuu ku bartay wuxuu ka baxay dugsigii farsamada ee institute-ka Burco loo oran jiray kadibna 1991 wuxuu u shaqo tagay magaalada Muqdisho sidii caadadu ahaan jirtay oo qof waliba marka uu iskuulada xaggan ka baxo caasimada ama xamar la isugu tagi jiray warshadii birta ayuu ka shaqeeyay maadaama nin salcaani ah ahaa muddo ayuu halka joogay dabcan dhibaatooyinkii wadanka markaa ka bilaabay wixii ka jiray ayuu ogaa 83kii wuxuu u boqolay wadanka Kuwait arlada carabta Kuwait iyo Suuriya dhulka 15 sano ayuu joogay waxyaalo badan buu soo joogay waxa kamid ahaa dagaalkii Khaliijka iyo dagaalkii gacanka balaayoyin badan oo arlooyinka ka dhacay marxaati uu ka ahaa kadibna wuxuu ku soo noqday dalka 1996kii Burco ayuu yimi waxa la yaab leh oo ii geeyay inaan barnaamijka ka duubo 3 buug ayuu qoray ka ugu horeeyay wuxuu ka qoray oo uu bixiyay dagaalkii qarniga waxa dagaalkii 1973kii dhex maray Masar iyo Israa'iil ama Arab iyo Israa'iil ka kalena wuxuu ahaa dagaalkii gacanka ee Iraq ka dhacay oo Kuwait ay sabab u ahayd isaga la fahantiisa ayaa Kuwait lagu qabsaday oo mar dhinac u cararay mar waxa kale u soo cararay dabcan way arnimo in badan laga sheekay ma aha taas ta ugu yaabka badan ee buugtiisa aniga aad ii yaab galiyay waxa weeye buug uu bixiyay gobonimo oo uu dhacdooyin mataana ah isugu keenay wuxuu ka sheekeynayaa 1981kii ilaa 1991kii wixii ka dhacay Somaliland ama dhulkii waqooyiga loo oran jiray wuxuu u mataanaynayaa wixii ka dhacay Liibiya 1912kii iyo 1931kii kullayba aniga buugaas uu soo jiitay waxyaabo la yaab loo badran way ku jiraan isaga ayaa weydiin doonaa marka hore Cismaan ku soo dhawow studio Home Cable TV uu ku leeyahay magaalada Burco aad iyo aad baad Maxamed ma santahay waxaana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa fursada qaaliga ah ee asiiseen ay ugu marti qaadeen xafiiska ay ku leeyihiin magaalada Burco aad iyo aad baan Home Cable iyo dhamaantiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa noloshaada intii aad yaray inta yareen ka taabtay waxa laga yaabaa markay dadku madaxaaga xiiran iyo arkaan inay shilaahaan oday weyno dabcan barnaamijkayga wax looga bartay odayaal gabgaboobay laakiin marka da'daada iyo loo eego dabcan waayihii ku soo maray malaha timaha ka xiiray laakiin ma weynid marka waxyaabihii uu xasuusta badnaa ee dhalinyaranimadaadii ama waayihii wadankan ka jiray ilaa intii aanad ka bixin dhulkii Soomaaliya la isku oran jiray bariga waxa uu waaweynaa ku soo maray bismillaahirrahmaanirrahiim warta horta Maxamed waxa weeye waxaan ka baxay ku dhashay magaalada Ceerigaabo sanadkii 1960kii waxaan dabadna maxay ahaydonay magaalada Ceelifan degmada Ceelifan ayaan ka bilaabay barnaamijka Quraanka hase yeeshee 1970kii ayaan u soo guurnay magaalada Burco halkaas oo aan ka bilaabay ku dhameystay dugsigii hoose dugsiga oodka loo oran jiray bariga oo hadda tog dheer la yiraahdo oo dowladda hoose u dhow 1974kii xilliga waxaan aad u xasuustaa abaartii daba dheer ayaa dhacday waxaana balasaabka ahaan jiray gobolka Togdheer nin Maxamed Cali Daahir ayaa saafilayo ka ahaan jiray waxyaabaha waxa aad u xasuusto oo runtii murugo badan iyo dhibaato fara badan oo dadka soo gaadhay abaartaas ayaa maxay doonay dhacday waxaan aad ugu xasuustaa inuu booqasho ku yimi madaxweynihii ku-xigeenka Soomaaliya markaa la isku oran jiray Ismaaciil oo isna booqasho ku yimi sanadkii 74kii waxaan aad u xasuustaa arday loo qaaday baan noqonay oo aad u yaryaray oo lay kaalmeeya dadkii abaarta ku soo xisay si ay u siisaan maganaysan cunada iyo markaa anagu aad u yaryar ya laba gaarina lagu qaaday waxaan ka mid noqday ardayda la geeyay beer si dadku ay maganaysan carruurta yaryar iyo dadka wala qaadaan inta hadaan ka sii gudbo dugsiga dhexe waxaan ku dhameystay dugsiga sulkeyno la yiraahdo maxaad ku xasuusataa mesela abaarta markaad u eegto waaga dhibaatada
dabcan dhalinyarada ahayd dadka wax quudinaya baad ka mid ahayd maxaad u soo qaaday ninkan bara saabka ama gudoomiyaha ayaad markaa ku xasuusataaye tilmaantaa gaarka kuugu taallaa maxay waxay igu taallaa tilmaantaasi waxa markii uu yimi yaa waxa waayo anigu nin dhalinyaro aad u yarba markaa waxaase dadku ay ku sheekaysayeen maqaaxiyaha ama magaranaysaa ay dhulka la fadhiisanayo odayaashu ninkaa waa la gaxeeyey oo degmooyinka lagu soo wareejiyo dabeedna waxay markii la gaxeeyey mas-uuliyiintii dowladdu markaa wafdiga ku timi ay gaxeeyeen waxay ninkan ma garanaysaan dabeedna waxay anagu ma garanayno markaa dadku sidii nin aan markaa aqoon ama degmooyinka dhulka abaartu ka dhacday iyo dhibaatadu gaadhay bay dadku ku sheekaysanayeen in aanu soo kormeerin oo aanu ma garanaysaa aanu waajibkiisa ka qabsan waxaan kaloo aad ku xasuusta waxa uu jeclaa ciyaaraha oo waxa lagu magaranaysaa lagu yar dacaadin jiray xagga ciyaaraha ayuu jeclaa hadii jeer meesha lagu ciyaarayo ayuu magaranaysaa iman jiray dabeedna saas iyadana loo oran jiray wuxuu meel ciyaar lagu joogto oo laga daawanayo inbuu hadii jeer jooga waxyaaba markaa u caanbaxay aan ku xasuusanahay dadka ayaa aad u hadalhayn jiray magaranaysaa yani inaanu sidii loogu talagalay mas-uuliyadda gobolka aanu halkii sidii ahayd aanu uga qayb qaadan oo magaranaysaa aanu fulin waajibaadkii magaranaysaa oo markaa caan buu ka ahaa markaa dugsigii dhexe waxaan ku dhamaystay dugsigaa Sheekh Yuusuf Al-Kaynuun sanadadii 1974 ilaa 78 dabadna waxaan galay oo waxbarasho kusii kororsaday iyadoo loo qoran jiray dalab Britain ah in Soomaaliya oo dhan ku isku oran jiray in imtixaan loo galo 45 ugu sareeya ayaa markaa geli jiray marka waxaan ka mid noqday 45 ugu sareeyay ee gala dugsigaasi technical institute Burco sanadkii 1987 dabeeqadii ilaa 19 markaa ku jiray marka maxaad baratay marka waxaan qaybta baabuurta auto section maanaha qaybta baabuurtana markaad ka baxday maxaad qabatay waxaan galay isla caadahayd waxa la geli jiray 6 bilood oo xalana ah ayaa la geli jiray oo tababar soo la geli jiray dabeedna wixii markaa jaamacadaha يعني قلية يوحي كمكان شقة قرن أما قبنا أما شقة دولة قليانا ساسي هاجر. marka waxaan xasuustaa sanadka 1900 sano kilukus ka nabad buu ahaa aad iyo aad iska fiicnayd hase yeeshee xilliga waxaan aad u xasuustaa waxa markaa Hargeysa ka ahaa oo maqaalana waa generaalkii ama ciidamada dhulka intaan balaayad iyo dhibaato soo bilaamin salxaan ayaa haystay waxaan aad u xasuustaa waxa dhacday xilligaas oo 19 July inay ku beegnayd waan fasax booqasho ku joogay family-go markaa qaar ka mid ah Jowhar deganaayeen waxa dhacday diyaaradii Fookarta waxa la socday si aan filayo nin loo soo bedelay markaa igu maqaalay loo soo bedelayay maxay ahayd aan jeex loo oran jiray Allah naxariiste iyo nin kale oo isna diyaaradda ku dhintay oo Cornel Barambaro isna loo oran jiray oo aan aad u xasuusto waxyaabo aan aad u xasuusto ninka markaa diyaaradda halkaas ay afgooyay ayay waxaan xasuustaa ninkii xitaa ku dhintay journal lagu soo qoray dhafuujan in la yiraahdo ayaa bayloodka ahaa marka sheekooyinka halka loo soo bedelay dadku markay hadalay waxa la bedelayaa loo soo bedelayaa halka ninka u dhashay gobolada ayaa dadku maxay doonay hadal hayn jiray ninkii markaa waa kii diyaaradda ku dhintay anu markii aan xaalan galay markaan galay 6 bilood aan soo dhamaysanay anu markaa ma gelin maxay doonay kuliyadda borotiinka oo isku qori jiray waxaan soo qabtay magaalada Burco waxaan ka qabtay shaqo qaran oo 6 bilood ah waxaan macallin shaqo ka noqday dugsiga qasabka beriga loo jeedo 4 sanadii la dhisay oo markaa dugsi dhaxa oo ah leeyahay 22 November haddana arday badan baa ku jirto magaalada ayuu ku yaala maxaad dhigisay markaa waxaan dhigi jiray Arabida ayaan dhigi jiray Arabida institute laguma aqoonin Arabi yaqaaneen aad baan markaa Arabi markii ugu horreeyay wanaagsan markaa dugsiga dhexe ku jiray baan aad u bartay markaa dib wax xasuustay markaa macallin baa la waayay Arabida dhigada masana ana dhigaya markaa shaqadii dhamaystay shaqadii qaranka markaan dhamaystay waxa dhacday mudaharaadkii ugu horreeyay ee Burco ka dhaca waxa mudaharaad ka dhacay Hargeysa oo saan filayo 19 marka halkan waxa ka dhacay mudaharaad oo aad la isaga hor yimi waxaana lagu soo wargeliyay ardayda waliba aadka u waday waxa ahayn macallimiintii secondary Sheekh Bashiir ka dhigi jirtay iyo habeenkii sameeyay caalam boorarka iyo waxba anaga waxaan lagu soo wargeliyay maadaama anagu arday aan ahayn macallimiina inaanu hawl gelino ardayda oo naano laga qayb galo mudaharaadka waxa laga mudaharaadayay xirista la xiray maxay doonay Hargeysa ka dhacday qoladii Hargeysa ka dhacday in halkan laga waxeeyo wuu dhacay mudaharaadkaasi dad badan waa la xiray cidna wax ma loo geystaa
ها waxa weeye kulli magaalada mudahar qas baa ka dhacay dood waxyaabo aad loo baabiyay dood hoose baa kamid aad baa la isku horin hase yeeshee arday macallin badan wala xidhay annagana waxaan hoosaan ardaydii macallimiinteedii ka dhigaynay dugsiga kooxda November waxaan nin baa war noo keenay wuxuu aroorta hateeginina iskuulada waxaa la wada dhigayaa in la wada xidho macallimiin oo dhan marka anaga iyo macallimiinteedii qaar kamid oo suur gelinay meel aan isugu tagaynay waxaan bartay macallimiin xaadirta yeesin dadna aroortii waxay keeneen koofiyad cas oo waxba waayeen oo waxa u dugsiya ardayna ma imanin macallimiinna ma imanin aakhirkii waxa noqotay hadana shaqaale dawladeed aakhirkii waxa noqday shaqaale dawladeed baa noqday waxaan qabtay xamar waxaana lagu qaybiyay shaqaalaha iyagii dugsiga loo jiray 15 May baa lagu qaybiyay dadka shaqaalaha la gelinayo waxaan ka mid noqday shaqaalihii lagu qoray warshada birta waan farxay warshada birta marka lagu qorayo nin aan maabtinahayn baa injineer ka ahaa dadna xaasi maadaama iska shaqada iska hawl badan tahay oo inaad wax ka hesho nidaam markii hore baabuurta taqaaniinta noo wax kale ha ka sabcadaadii ka heshay meesha sabcad may waxa lagu sameeyo wax kale dadna waxaan siray maxay ahayn waad ka faa'iideysan doontaa waxa lagu sameyn jiray haamahan kujiinada iyo waxyaabo kale masaari baa haysata marka waa engineer dadna xasoo ka faa'iideysan hadaad maqnaysaa ka qoras iyo aad ka hesho waxbaad ka baran markii aan meeshii warshadii tagay ayaa waxa aan la maalmo joogay ayaan qoran warshada yaa ka maareeya ka waxay u yiraahdeen waxa maareeya ka dadkii la xuma qarsoomay nin bari buuxal lagu soo casilayo oo aad loogu dhibayo ayaa maareeya ka dadna waan ka booday arintii markiiba waan ka booday waxaan kan faa'iido kama soo jeedo markii aan bil joogay oo aan runtii xagga dibadda waxaan waan doonayaa yar qabto aan qabto ugu jirtay ayaa bishii ugu horeysay markii mushaharkii nala siiyay oo xarmaan ilaa 700 wax dhiman waxna ahay yaan si bishii labaad u soo doonay mushaharkii marka adigu kaliya baa jooga maqanaysaa dadka u dhashay marka qoyga kaliya baa ka dabadna ninkii waxaan ugu yimid ninkii lacagta bixinayo waxaan ku lacagtii isi marka anigu waan meeshan ku jiro yaaqshi xaafad leeyahay fog baan ku jiro leed baan iman jiray hase yeeshee waan la ruuxi jiray dabadna markii lacagtii ku kala siiyay ayaan lacagtaysi hadaba dabadna wuxuu yiri adigu ma timaadiyo siin ma lacagta marka waan ninkii xafiiska personalka haystay waxaan waayo suudiga nimankan kale ee si ayaguna aan ila warawxin lacagta maxaa siiyay wuxuu ku siin maayaan waxa damadaad siinay nimka lacagta siinay iyo qodib cilmi kama shaqeyn maayo marka sumaanaan tagin ninkii maayarka waa ninkii shaqaalaystay wuxuu waan ku qoriyaa waxaan ii qoro hadda aan ka tagay dib ugu soo noqon maayo warqadii baa la ii qoray maareeyihiina waa laga saxay maareeyuhu marka iima yeelno moona ninkan muxuu shaqadeedii kaga tagayaa iyo waa kan iyo waxba toona markii warqadii aan qaatay la soo shaabadeeyay ayaa imantii ayay tilkaale warqadii qaado warqadii marka uu saxay oo shaabaysan markii aan warqadii galaysan yaa waxaan ku ritay jaabka marka warqadii ku hubsay jaabkii ugu jirto yaa ninkii maayarka ahaa oo xafiiska ku jira maareeya ayaan ugu galay waxaan ku yiri bawaran wixii nabad waxaan ku yiri maxaad lacagta igu diiday marka su'aashii aanu maxay hadoonay igu aan ii jawaabin ayuu hadana ayaan ku yiri waxa lacagta igu diiday Soomaha calaashaan burco ayaa ka soo baxday oo dadkii burca wax ku bartay ka soo baxay baa dabadna wax kale igu jawaabinay wuxuu igu yiri ha dabadna labada kale markaan soo ayaan albaabkii si ka bax marka batam yar baa uu waxaysan meel maqnaysaay ma askarta xafiiska laga hadlo askarta oo jalisa dawladda jaliska ku dhuftay shaqo marka yaani soo gaar inama askarta uu yaqeenay inaan maabtiga marka aan joognay oo aad yaqeenaba waxay ku carareen Cabdullaahi Ismaaciil kuna xasan uu xamar ku dhintay ayaa waxay ku carareen waxay ku yiraahdeen marka mid la dagaalantay ma yeelin taas su'aalo su'aalo على أي حال حتى هي نفس الرأي واي كورما كبحري حمر حجزت حمر انتانا حمر كبحين نيكي وشدي ولا عليو ورقدي واحد تيجي حرونتي وساعد شغاله ما بشد waxa markaa u tagay maxay wasiirkii wasiir ku-xigeenkii shaqada yahay bulshada Maxamed Yuusuf ninkaas wuxuu ugu qoray markaa warshadii bacriminta iyana waa laga soo diiday nin dugsiye leeyahay ayaa ka ahaa maareeya ka ahaa waa buuxdaa weey
dabeedna maxamed baan kula soo noqdayo maxamed yusuf baan kula soo noqdayo waxaan ku yidhi shaqadii waa lii soo diiday wuxuu yidhi maxay doonay orod anaa la hadlaya maxay doonay ninkaan markaa dugsiyu la hadlay waa liigu celiyay shaqadii markaa warshada waxay ka soo gashay bacrimintu baan u shaqeeyey 6 bilood maxaad ka baratay waxay warshad cusub oo markaa Taliyaan joogo markaa afkuna waa ugu adkaado dabeedna waxaa noo keenay in Australia waxa la yidhi maxay doonay halid maxay baro saadii shaqada iyo arrimaha bulshada ninkaan ay nagu bixiyay kooras noogu dhigi jiray maad markaa ka baxday Soomaaliya maxaa jiray markaa waayihii ka jiray wadanku markaa waxaa igu soo maqaalaasa waay adag ba ka jiray waxa la jebiyo sheekada markaa joonka ku soo qoray jeelkii Mandheera oo la jebiyay sheekada markaa joonka lagu soo qoray January san filayo markaa wuxuu hawaayaha ka kacsanay ama dhibaato taagan ee ka soo aloosmaysa waqooyigu waxay aad u daran jeelkaasna markaa waa la bilaabay oo waqti joonka lagu soo qori jiray in la jebiyo jeelkii Mandheera waxa tagtay Kuwait maxaa kala kulmay Kuwait markii aan tagay waxaan shaqo ka bilaabay meel joog aad u kulul runtu ahaa oo aan aad la yaabay oo kulul waxaan shaqo ka bilaabay dekada Shucayb la yiraahdo ayaan ka bilaabay storekeeper waxaan markaa muddo ka shaqeynay ilaa waxaan ka gaaray shaqada la yiraahdo sida maraakiibta oo container terminal kala ama container qaadis loo dejiyo doona raro taas waxaan joogay markaa meesha shaqaale shirkadda Ingiriiska ayaa joogtay tababar fiican runtii dadka siin jirtay dadka shaqaalaha jooga arday inama badan oo Soomaaliyeed way joogeen marka ilaa inta dhowr 10 sanadood aan joogay tugeyso intii aad joogtay dhulka Carabta imisa sanadood baa ilaa qiyaastii 14 ka waxa joogtay Kuwait miya 14 sanadood Kuwait baan joogay laakiin maraan qax ku joogay Suuriya jirtay way maxaa kugu qabsaday wixii kugu daraay ugu yaabka badnaa ee ku soo maray muxuu ahaa ugu yaabka badnaa ee soo maray waxay ahayd habeenkii uu ugu qabsaday Saddam Hussein August oo khamiista labadeedii annagoo wax iska shaqo ku jirna oo aan naga qasnayn ayuunba nagu qabsay ciidamo 100,000 oo ciidamo nagu qabsay labadii habeenimo oo maalintaas ay khamiis tahay marka arintaas waa arinta weliga aan la yaabo wadan ay saaxiib ahaayeen wadan saaxiibkii qabsaday waayo waxa ka dhaxeeyay xiriir aad u wanaagsan dagaalkii marka Iran iyo ay Sacuudiyeen qodan saaxiib qodan lahayd Shucayb waxa ku soo xilin jiray maraakiib Ruusha oo alaab yasaanid military u sida saaxiibtimo wanaagsan baa ka dhaxaysay oo aad iyo aad wanaagsan tan waxa la yaabay dadkii saaxiibtinimada wanaagsan ka dhaxaysay la yaab kale sida uu qabsaday uu soo duulay iyo sida uu lumiyay wanaagii iyo saaxiibtinimada ka dhaxaysay taa waa la yaabay waxaan kaloo la yaabay wadan dhan oo ciidamo lahaa oo deganaa oo cid balaway habeenimo iskaga digay taasna dagaalka khaliishku markuu dhamaan dabcan la soo weeraray halka Mareykan iyo gaashaamurno soo soo weerartay kaana wada soo joogtay Soomaaliya oo lagu qabsaday markaan anigu markaa waxaan ka baxay markii Saddam Hussein 15 casho haystay Kuwait yaan dariiqa ka baxay ragci baan ka baxay xuduudda ragci waxaana ka baxnay biimihii ugu adkaa halkaas uga soo maray oo goor galabaan anagoo dariiq garanaynin aan gaari maaytay bisho nooca bajeeraha kaga baxnay waxaan marnay dariiq 2 saacadood khatar ah been xayaa walmowda dariiqa ma aan garanaynin nin waxaanu wararka aan xayru ka baxnaa 6 waxaan qiyaas 4 nin hadda imka Holland jooga iyo nin Hargeysa jooga waan ka soo baxnay waxaan la gaarnay xuduudda markii aan ka baxnay xuduudda ragci oo taangiyadii marka taagan yihiin Ciraaq taagan yihiin halkaas dabeedna aanu ka galay xafurbaad meel la yaado ila Riyadh ila Jidda ila marka dama waxaan ku Suuriya markaan Suuriya halka aan joogno Suuriya waxaan joogay qiyaastii 2 sano wax dhiman dabeedna marka waxay runtii meel looga bixi kareen waxaan markaan taragelay inaan ku dadaalo bina wax ka barto dabeedna maxad Kuwait ka baran jiray oo ayaan si baahan inaad ka hesho marka waxaan ka baran jiray maxad Al-Ahli luqadda iyo kitaabada iyo qoritaanka ayaan ka baran jiray Kuwait sida wax loo qoro sida kitaabada wax loo qoro marka waa tan kugu dhalisay hay ina ha taaso marka halka waan ka helay Suuriya inkastoo ay markii hore igu adkaatay asay nin Suuriya la bixiyo dabeedna ninkaas nin walaalkiisa iigii 3 buug bad qortay saddexda buug waxaad u kala bixisay mid dagaalkii qarniga aad u bixisay oo waxaad tidhi waa dagaalkii Masar iyo Israa'iil dhexmaray 1973 Anwar Saadaat ayaa madaxweyne ka ahaa wadanka Masaarida oo isaga ay riday ama dagaalkii Baarleef yaa loo yaqaan
ka kalena waxa weeyaan buugga labaad aad qortayna 1991kii saad sheegaysa markii Saddam Hussein uu qabsaday Kuwait uu muu qabsanaa dad ku qabsaday waxaan la yaabay oo soo qaatay buuggaaga saddexaad gobonimo la yiraahdo marka dhacdooyin mataana baad ku qortay waxaad isbarbar dhigaysaa Somaliland 1981 طبعا waxaan maranaynaa dujeedo markii SNM la aasaasay ilaa 1991 oo ah markii burcodan ay joogno laga dhawaaqay go'aansiyada Somaliland waxaad barbar dhigtay Liibiya 1912 ilaa 1910 maxaad u jeedaa xageed noola kacday yani muxuu ahaa tan carabta la garayo ma garanaysaa dee waa dagaalo dhacay oo adduunyadu dhammaan ogtahay telefishinada laga daawaday waag badan baa laga qoray laakiin labadan arrimood isla dooratay maxaa ku jira waxay u kalifay hal qodob bay u kalifay waxa jirtay xasuuqii iyo dhibaatadii Somaliland ka dhacday uu sameeyay taliskaasi wax documentary ama movies ama documentary habayata lagama hayo ilaa in yar oo ka luntay mooyaane waxaan markaas helay markaan muddo badan baaris ku jiray in sida waliba aan inta ka yaray waxa ku ciwaanka sida ku taala gabay uu tiriyaha Hadraawi oo xagga dambe oo ah nin gumaysi habayo isticmaar habeeyo la halmaalay baa tahay arrintan sida Soomaaliya سنال جريسيان قلت لياني يا محمد سياد برو هاب كان دتك تعدية إياه إسوافقي يتعدي سومالي نقوم نقول وإسوافقي سيد بيو كتالا كسمي أوكي gobonimadu waa libin ku taxan geedi nololeed waa gumaro aadmigu hantiyo guusha ugu weyn marka kaana waxaad halkayskiis hoos dhigtay labada roosna waa gabayga Hadraawi ujeedada cadday waxa sheekooyinkan aad keentay iyo saadu keentay iyo bal hadda waxa isleedahay faa'iido ku jiraano ama dhalinyarada wax ka qaadan karta ama xasuus ahaan baaba loo qaadan karaa reference ahaan oo ninkii wax baaraya ama wax gudo su'aal aad wanaagsan waxaan kale horta ka faa'iiday duqeynta magaalada kufrada ee Liibiya ku taal sida loo galay iyo caasimadda Somaliland oo Hargeysa sida loo galay ayaa horta buugan ku taalo laga faa'iideeyaa dhacdadaasi waxay dhacday 1930nadii Hargeysana waxay ka dhacday 1988kii General Graciano oo duqeynaya magaalada Kufra iyo Aweys Geedo oo loo soo xilsaaray duqeynta magaalada Hargeysa ayaa isbarbar socota waxa ku taala laba general oo magaalada iyaguna duqeynaya oo saaran fooqa sida ku taala buug oo iyaguna sida magaalada iska shaabahaan waxyaabaha ku taala waxa kamid ah aad u xiiseeyo ku yaala buug iyo General Daawud iyo Siyaad Daawud buugga aan cajeeda waa documentary qura ee aan helay ee laga helay ee ka lumay iyaga iska duubay waana la helay waxa kale ku jirta gobolada wanaagga ay leedahay iyo sida ay loo soo maray inay dadku ka faa'iidaan iyo dhibaatada culus ee loo soo maray nuqul hadaan ka baaro waxa ku jirta Umar waa la qabtay والله فاروق مع عمر مختار عمر مختار بنشي عمر markii la qabtay ninkii dagaalamay Liibiya ma garanay ninkii u dagaalamay Liibiya 20 sano Umar waxa loo keenay Graciano miis ay ku wada fadhiisteen waa loo keenay wada hadal wuxuu weydiiyay su'aalihi markii la soo weydiiyay wax iyo ama waxyaabo aad u weydiiyay wuxuu goorma soo dhiibaysaan waxa kale sheekada kala ka baxo goorma ay soo dhiibaysaan Umar wuxuu ku jawaabay hadal buu ku yaalo oo qiimihiisu aad u leeyahay wuxuu ku yiri isdiimayno kelmad carabi ku leena system nantasir oo namuut oo ah ama wanu dhimanayna ama wanu guuleysanayna taa la mid ah ay jabhadii SNM ee wadankan u soo kifaaxday ay sameysay waxay ku sameysay heshiis ba Ethiopia iyo Soomaaliya dawladdu ay wada galeen waxa lagu soo go'aamiyay in aan heshiina bay yiraahdeen warqadii iyo go'aankiina waxa loo dhiibay gudoomiyihii markaa jabhadda oo ah madaxweynaha imka wadankan talada u haya Maxamed Siilay waxa loo geeyay in sida yeelisaan oo soo noqonaysaan oo soo xoransaan sida Umar iyana meel tageen
wax badan oo iska sheekaysay markaad lahayd biimaatiin waxay iyana ku soo goosteen markay isla tageen dhammaantood meel isugu tageen dhimasho iyo guul ama waa gelayna waa dhimanayna haddii kale ma jirto wax kale marka labadaasaad isula dooratay iyada waay maxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha ku cajabiyey kugu kalifay inaad buuggaas u qorto waxaa loo cajabiyey xasuuqyada ka mid ah waxyaabaha uu sameeyey in xasuuqyada oo iska shaabaha sida inaan ku jirta oo la deldelay oo maxay ahayd oonay inankii iyada ninkeediina dagaalka aanu buurta leehdo oo ku jira ninkeedii lagu dilay iyadiina lagu soo eedeeyey in ay jabhadda kaalmo siiso ninkeediina waa dhintay iyadiina waa la deldelay inankeedii yaraayo cali ah oo Cumar uga sheekeenay inuu yahay kuwa gobonimada hanan doonana ayaa ka soo haray ayadii mabruuq qaaday yaani halista iyo dhibaatada ay leedahay gobonimadu iyo qiimaha ay leedahay ayaa waxyaabo fara badan oo qofka yaani qiira ku sameeynaya iyo inuu gobonimada ilaaliyo ayaa ku jirta xasuuqyadu iska shaabahan sida xasuuqyo badan oo ku soo qaatay oo Soomaaliland ka dhacay ayaan inuu dokumenteeraan soo geliyo sida xasuuqyada la yiraahdo kalshi ka dhacay gubatada xasuuqyadii malka durduro xasuuqyadii gabiil ka dhacay xasuuqyada xabaalaha maatada la yiraahdo oo dumar oo ka dhacay xayr ducata meel la yiraahdo tuuleeda ku dhow oo dumar uur leh iyo caruurtoodii la mariyay beebe marka xabaalahaasi iyagana waxa la yiraahdo xabaalaha caana maatada xabaalaha birmegeydada aanu bixiyayadana oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho axlay magaalada Burco iyo xabaalihii jasiira ka dhacay oo ku soo qaatay nin oo aad wareysi dheer sagana maxay ahaydonay lala yeeshay oo la yiraahdo Muuse ninkii jasiira ka baxsay magaciisa waxa ahaa Axmed Mira okay markaad isu soo xooriso guud ahaan buugtaada yaad isleedahay way ka faa'iideyaan waxaan isleeyahay buugta waxaan ku tala galay horta qaar kood sheekooyin Soomaaliland dabcan ku qortay ha waxaan carabida u soo taagay carabida oo ku qori karaa aan ku qori karaa carabina marka macray baad ka soo turjuntay mise inta badan waxaad ka Ingiriisi wax inta Ingiriisi carabida loo isku dhaxshay laakiin inta badan waxay u badnaan carabiga inta badan laakiin labadu wada Soomaaliyeed Ingiriisiyeed qaybta way wasoceen marka ka soo dafay afranta ka soo sameeyay laakiin inta badan waxay u badnaan carabi jaamacadaha iyo iskuuladan iyo ma tustayo magaranaysaa waxa laga yaabaa inay manhaj mar reference u qaadan karaan waqti qaarkood oo de taariikhda qofkii baranaya haddii afafka kala dhibaato ku yihiin laga yaabo inuu si fudud ama library-gooda ama maktabadda iskuulada dhan waan geeyey iskuulka Sheekh Bashiir waan geeyey in kastaan kan wali u geeyay kan cusub yahay wali baan geeynin laakiin ku hor dhan waan u geeyay jaamacadaha oo dhan waan wada geeyay jaamacadaha Burco joogo oo dhan waan wada geeyay kan u dambeeyayna wali baan geeynin qaarkood laakiin jaamacadda maxaa doonay Adams la yaado imaantay ayaan geeyay Burco ku taala hargeysa qudheeda waxaan u qaaday minad buuga si ay dadku u arkaan inkastoo aanay badnayn markaad muddo dhowr iyo 10 sanadood qurbaha gaar ahaan khaliijka joogtay aakhirkii halkan aad ku soo noqotay waayahaad ugu timi 1996 iyo maanta bal hadda qiyaas Burco oo ku dhaxdad sax runtii markaan Burco animani waxaan animi dadku waxay ka socday dagaal sokeeye xasa ka socday marka may yar deganeen waxaan ku soo degay maxay ahayd Europe ku soo degay marka dadka ay joogeen laakiin wadcigu xusub bedelay muddadii inta ka dambeysay si xawli ah waayo wax muddadii inay aad iyo inta loo waay arkay ay magaalooyinka Soomaaliland ay u ekaadeen inay soo noqdaan sida New York iyo Manchester iyo London ay soo ekaadaan waxaana keentay 20 sano dadku wuxuu sameeyay maxay ahayd horumar iyo dhul jacaylkoodii inay dib soo celiyaan iyo waayahoodii soo maray inay dib xasuustaan marka imika waxa aan jooga maamulka waxaan istibalaasay ka maamulka haya ha ma rabo inaan waayo ma jeceli in runtii qurbuhu dhibaato fara badan yahay horumar caynkaas oo badan oo maxay dhulkaaga marka tagtay waxa weeye waa deegi kartaa yaani sida magaranaysaa dhulkaagu qiimaha u leeyahay oo waan soo arkay waayo badan baa igu soo maray maxaad kula talin lahayd dhalinyarada ama hanka u leh ama doonaya inay wax qoraan ama wax sameeyaan oo ay kugu daydaan adigoo kale
maxaad ku odhan lahay waxaan ku oran lahaa horta taariikhdu dadkeenu wax ma qoraan runtii waayo waxaad ka garanaysaa ma akhriyaan wax akhriska waa imika maktabadaha waaweyn adduunyadu sida loo eego waxaa dadku shuruurba maktabada ku yidhahdaan anigu waxaan qabaa kolley xagga maktabadaha wax akhriska inay weli yani dadku aad u baran weli khaasatan burco waa imika buugta yani akhriskooda qofku inuu xiiseeyo oo ka faa'iideysto way maktabad iyo buugaag lama helo ama sheekooyin imika anigu markaan kaaga soo qaado markaan ardayga ahaa 73kii dagaalkii dhacay markaa waxaan ku ahaa nin elementary muddo 10 sano oo aan joogay wadanka gudihiisa joogay waan waayay taariikhda inaan helo iskuulada lagu dhigi jirin in yar oo kooban mooyaane inaan sheekada inaan helo oo laga helo may dhacin oo aad ducaado daadba ogtahay sheeko isaa u qoran marka adigu halkan jooga sheekooyin adduunada ka dhacday inaad si symboliyo aad u hesho aad iyo aad u fiican tahay oo adduunada ka soo dhacdo adigu una qaban meel kale una qaban meel kale u tagin talabaad iyadana faajinimo aan ku qornayni Soomaaliya kugu qoran tahay buuga anaad u xiiseeyay in dadka jecel gobonimada way imka for example gobonimada aan haysano Soomaaliland haysato dhalinyaradu ma fahansan sida loo soo maray waxaan markaa u soo qoray buuga aan u qaatay inay ka helaan dukumeenti rasmi ah waayihii adkaa iyo dhibaatadii adkayd iyo sidii wax u dhaceen iyo sida wadamada qaarkood ay u noqdeen walaal way mataanuhu waa laba qof oo hooy wada dhashay inay dhacdo noocaas adduunka ka soo dhacday tanna ka dhacday waxna lagu qaato ayaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cismaan Saalax Faarax waan filayaa inay dad badan kugu dayan doonaan aad